mudane Axmed Xaaji Cali Cadami wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland oo maanta warbaahinta dawladda kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa taasi u diray labadii sarkaal ee dhawaan ku geeriyooday deegaanka Qoriilugud kaasoo ku tilmaamay dhacdadaasi inay uga ku tahay Soomaaliland. dhacdadii dhaxdinta lahayd oo 18 bisha aynu ku jirro dhacday oo ka dhacday deegaanka Qoriilugud run ahaantiina mid hadda uguba oo taariikhda Soomaaliland iyo ciidamadeeda ugubku abay ahayd mid lama filaan bay ahayd mid naxdin leh bay ahayd hadday dhacdayna cid kubaro waxadisa oo tiraa dhulka halkaa lagama nixin xaafadabal waa laga aamusay xaafadabal way jawaabtay kubad la ciyaarayo la isaga jawaabayo ma waa geeri timi waa geeri naxdin leh waxaynu naxdinteedu daaran tahay halkii aynu halkaa ka wada jiriir oo lahayn halkii aynu halkaa inta qadiyada aaminsan oo soo dhimatay oo difaacday oo hadaa lagu halkan ka badan u soo gashay naxdin iyo hadaa tacsiil la isu diraa la filayay laakiin inaan siyaasad galino fana'uudu billahi minash shaytaanir rajiim. wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland waxa uu shaaciyay in madaxweynaha Soomaaliland uu tacsidii u horeysay uu diray labadaasi sarkaal eheladoodii qaraabadoodii iyo waliba shacabka Soomaaliland ay ka baxeen saraakiishaasi. waxaan galabta halka ka cadeynaya in tacsidii u horeysay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu bixiyay tacsidii waa tasawirkeedii saacadii la diray taariikhdii baa ku qoran waxyaabo aan laga been sheegi karin afayeenkii madaxweynaha baa maqashiiyay caa'iladii baa la qaaday caa'iladii baa loo geeyay marxuumintii ilaahay jannadii gacan xaqdaran baa dirshay jawaab ahlul janna markii hore difaac qaran buu ku jiray waa shahiid laakiin yaynaan shahiidka iyo taariikhdiisa xumaynin waynaan reernimo iyo baashi aan halka labada mayl dhaafsiisay ragtidii gaabnayd yaan taasoo kale lagu eegin. wasiirku waxa uu shacabka Soomaaliland u soo jeediyay in aan la siyaasadin dhacdooyinka noocan oo kale ah inay ka fogaadaan kana daayaan faragelinta iyo waliba hadalhaynta arrimaha u gaarka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland. wariyaynan ku goole baadin hebel baa dhintay raximahullah waa shahiid gacan ka xaqdaran baa dishay waa shahiid tuma shahiid weeye lagagama hari maayo hadduu cirka u baxo mahmaa kaan duruuftu saamaxdo waa la maqan yahay waa lagu maqan yahay asmaa sheegi mayno dowladaha saaxiibkaa lagu maqan yahay dalka gudihiisa lagu maqan yahay gar iyo gardarana waa la soo qabanaya waayo waa gacan ku dhiig leh waa mujrim waa nin taariikh madow raba inuu ciidanka Soomaaliland geliyo.